magaca saaxib magacayga waxaa leeyahay saaxiib Cabdillaah baa la dhahaa Cabdillaah عبد الرحمن عمر بنكب يوسف حسن نور خالد محمد قاليا عبد الفتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي أخيارتها إن بدن ما لعجيش دوارك سماها ما أنت واحد نيه نادي قصر كيا مقصنا قلنا قصر كيا سؤال ويدينك ده كريدي وتودينا الني أو ده كريدي سؤال سوي دينا وإحنا لنا هيدا هي waxaan leenahay maanta isku diyaar waa su'aalo inaba caadi hayn maskaxdiina waa inaad ka shaqaysiisay magaratan marka waxaan leenahay channelka waa inaad ku xidhnaatiin xidigaa Djibouti like subscribe iyo share intaba eeg imikana mar shay iyo xabba kale aan noo sheegaya su'aalahan dadka weydiinayno maca in ninka ku jiro comment-ka ku soo qoraysin jawaabaha waa kaas waxaan leenahay sida iyo daawasho wanaagsan let's go عليكم ورحمة الله وبركاته شوداي أي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعد هذا كبلاوي عمر بنكب وما كسر وش لكن يوتيوب كعدقات جيبوتي سؤال بنكوينا ماتا سؤال شو ما كده صاصع وان جوا يا صاصع لما صاصع أنا يرسو يد بهداك سنة سؤال شو عكورانسا صلاة الجمعة وارك سماه مسكيت كيوات قشي صاحب كذا كيدي شيخ الظاهر معها يا محاسب من وانت كلها صلاة دادو يسقوا داير لين هذا صلاة الجمعة وانسكت كلها لكن أنا واسكت كل واسكت كلها كل يوم كلها أنت هذه ها وانت كلها أنا لكن مرة لين إنه شيخ ودايرين إنه دايرين صح أنا نفترض لكن حقي لا صلاة الجمعة صلاة وصاق لي معها صلاة الجمعة وانت كنا يا وانا هدونا دي وانا سكبي حكريا واسكت بحكرة صح ده أدو يجرا دو داير معها وانا تجينا وحنا نادي معك ورن الشيخ نيو داير متيدي صو داير قالت صلاة دي مكانه الشيخ نيو معك ورن لا الداهر متيدي شيخ واحد شيخ صاحبك يا يا عمر والله قصر فات هذه صح اي هذا معاد هذا الشيخ الداني هذيك لعبه يحطوا على نقضوا عمر نقضبه انا ولد كنيا واسكت كنيا صلاه ايوه السلام عليكم شوداي وعليكم ورحمة الله وبركاته أرضو kusoo dhawaad channelka xidigaa Djibouti saaxib واندوه آدي magaca saaxib magacayga waxaa leeyahay saaxiib Cabdillaah baa la dhahaa Cabdillaah Abdullahi su'aashan maanta ku xweejaan saaxib laba islaamood bad gursatay labada islaamood maxay isku noqonaan sabab waa su'aal aan adkeen oo iska fududeen haddaan isku dayo ka jawaabo labada islaamood waxay noqonayaan walaalo ayay noqonayaan sababtoo ah waxba walaalaynaya walaalo ayay noqonayaan ana walaalsanaya moogtay waa walaalo weyn oo kaliya u dhalin oo abaqo u dhalin oo anigu walaalaysto eeg laba islaamood bad gursatay oo kala duwan ya laba reerood bad ka soo kala gursatay ma garatay labada islaamood maxay isku noqonayaan laba islaamood baan gursaday oo laba reerood baan ka soo gursaday maxay isku noqonayaan laba islaamood walaalay noqonayaan sababta ku noqon ma ku sheegaya labada baan wala saxana Soomaa timaada walaalay noqonayaan wax qora ka dhaxeeya adiga magaca ku bilaabay رضوان عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن ما أنت سؤال بنكوينا سؤال شيء عكوران صديق رضوانا لبا إسلامات وجرستي لبا إسلامات وجرستي محيش كنا قناة رضوانو يا والله والله أول بيت والله هو إسقبينتي عادي ولي جد الله قبا لا والله ولا سلكوا سنيتي جرستي أنا تام جدني بارك سماها لبا ناقودا ولا جرستي أديكو محيش كنا قناة رضوانو يا صاحبهم وين؟ صاحبهم ما بطا هو يا بابا صدق مقصي السلام عليكم صاحب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. magacaaga saaxib خالد محمد Khalid ku soo dhaw channelka xidigaa Djibouti su'aashan maanta ku weydiina xawajaan saaxib salaada jimcaad tagtay waad soo weysaystay waad ka qayb galis ma garatay ku saaxiibka ku qabto wuxuu ku yiri war sheekha maanta tujina daahir maaha maxaad sameyn lahayd داهر ما ليه تفكدين دي maxaad sameyn lahayd kaga bixilay salaada يا salaadaad ka bixilay ده داهر ما أبدا شيخ ده داهر ما يعني نظيف ما هو صح هذا ورقه maxaad yeeli lahayd yahan ده كل جوز كنت في كل هذا السلام عليكم صاحب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. magacaaga يوسف حسن نور يوسف ku soo dhaw channelka xidigaa Djibouti su'aashan maanta ku waxa weeyaan saaxib salaadii jimcaad tagtay markaad sida masaajidku ku gashay saaxiibka xaga fadhida aragtay markaasuu ku yiri saaxib sheekhan maanta tujinay daahir maaha ee aad maxaad sameyn leed daahir ma haya horta من كلمة الشيخ ما قرأت حاجة ده الشيخ وميد محوها خلاص دينتي ده يصدق ده ما حاجة ناقص ده adu daahir ma lagu dhaaday shakhsiyaanta adu maxaad yeeli lahayd maxaad sameyn lahayd ما سمين لا ده عمامة حلين لا خميس كنا كل علايو الكورة جزيرة هذا horsebo أي magaca ku bilaw عبد الفتاح عبد الفتاح سؤال كويس كران سامع وسؤال يروس كفض وين ده سؤال شيء كران سا salaada jimcadeed مسكيتكي waad gashay waad fariisatay qodbadii oo socoto خلاص هذا دمان qodbadii la galayo xariif guri fadhiya saaxiibka kaadi
yaa sheekhu daahir maaha bukaari maxaa sameynaysa salaada ma tukan lahayd misa de mise wasiga bixleed maxaa sameynaysa adigu kan la adaanayo tukan lahayd ah ay maxaa ku tukanaysa qodob ninkii baa ku yiri sheekhu daahir maahin be sheekhu daahir ma isaga yaa u sheegay sheekh inuu daahirayn yaa u sheegaya de isaga ka ogdo garanaya iyo garanaa de taa sheekh isaga ilaahay isu xisaabinaya aniga isla xisaabinaya ma xisaabanaya isaga ilaahay isu xisaabin doona eega su'aal si fiican ku fiirsaya salaadii jimcaheed dhigayso salaadii jimcaheed masjidkii baa tagtay sheekhi guri fadhiya saaxiibka ayaa kaadi sheekhu daahir maaha adigu maxaa sameyn lahayd bal ma dukan lahayd ma dukateen sheekhu daahir ma de jamac wala tukanaya jamac waxay sameeyaan badiyay leedii hadii la galo salaad waad galaysaa qasab horta maxaa sameyn lahayd ma hadda horta salaada jamac wala tukanaya salaada jimcaha ma shay anu horta daahir hadaan yahay siba u naxsatay shirda jib horta su'aasha caadi ku jawaab abti waxba turaab baan igu qaadanine ma naxsaniye turaab baan igu qaadanay waa sax sax jawaabteedu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaashay عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا adaa magacaa ku bilaabayo قاليا qaaliyaa ku soo dhawo barnaamij dadka su'aalahan weydiinayno su'aashu waxay ku oranaysaa walaalka waa aragti Soomaha ama aabaha ba ka soo qaad aabaha laba islaamood uu qabaa labada islaamood aabaha wala guursaday maxay isku noqoneen dangalo sax waad garatay su'aasha waad ku guuleystay su'aasha ma hore u maqashay meel ba ka maqashay mise ayaa ku sheegay ما يا سؤال شلون مقلي dadka waciyaan ka maqlay labada dumar aan is qabaynay dangala isku noqonayaan sax ma sita walaashay